Bismillahi Raxmaani Raxiim. Casharkan waxaan ku baranaynaa settingska ayaan ku baranaynaa. Settingska muxuu yahay? Waa qaybta ugu muhiimsan ee kombiyuutarka. Asaga iyo control panelka labadaas qayb ayaa waxna laga bedelaa waxna loogu daraa. Marka settingska aan isla fiirino. Haddii aan isla fiirino settingska waa kana. So marka calaamadan matoorka camal ah ayaa settingska la yiraahdaa. iPhone-nada iyo taleefanada caadiga xataa way leeyihiin. So marka settingska markaa klik siiso waxaa kuu soo baxaayo page ayaa noo furmaayo. Page-ka markuu noo furmo intaasoo qaybood ayuu ka kooban yahay. Waxaa ka mid ah system ayaa ka mid ah, devices ayaa ka mid ah, phone ayaa ka mid ah, network and internet ayaa ka mid ah, presentation ayaa ka mid ah, apps ayaa ka mid ah, iyo and so on and so on. So marka intaasoo shay ayaa ka mid ah. So marka system oo kale haddii aad rabto inaad wax ka bedesho oo kale click ayaa ku siinaysaa. So marka display oo kale waa muuqaaladii haddii aad rabto inaad wax ka bedesho oo kale. Sound oo kale codadkii oo kale haddii aad rabto inaad wax ka bedesho oo kale inta ayaa laga bedelaa. Notification-ka haddii aad rabto inaad wax ka bedesho inta ayaa laga bedelaa. Notification-ka waa taqaaniin waa haddii email uu kuu soo dhaco waxyaabaha kuu soo boodaayo oo dhawaqa kuu sameynayo ayaa notification la yiraahdaa. Focus-ka, power and sleep-ka ayaa laga bedbedelaa. So marka haddaad rabto inaad wax ka bedesho oo kale qaybahan oo kale system ayaa tegeysaa. Devices-ka haddaan rabno devices-ka inaan wax ka bedelno maxaan wax ka bedeli karnaa? Bluetooth-ka inaan on ka dhigno oo kale, printers and scanners-ka haddaan rabno inaan printer kusoo xirno xageen tegeynaa inta ayaa laga isticmaalaa. Mouse-ka inaan wax ka bedelno haddaan rabno oo kale inta ayaa laga bedelaa. Touch pad-ka oo kale haddii aan rabno inaan wax ka bedelno inta ayaa laga bedelaa. So marka USB-ga oo kale waa kana haddii aan rabno inaan wax ka bedelno inta ayaa laga bedelaa. Devices ayaa laga bedelaa. So marka phone-ka oo kale haddii aan rabno taleefanka inaan taleefon ku xirno oo kale inta ayaan uga darsan karnaa. So marka option-nada aad ayay u badan yihiin. Network and internet-ka oo kale haddii aan rabo internet-ka inaan wax ka bedelo oo kale cilad bixin aan u baahanahay oo kale xagee ka cilad bixinayaa? Halkan ayaa ka cilad bixinaysaa. Internet and network ayaa ka cilad bixinaysaa. Wi-Fi-ga waa kana, internet-ki waa kana, dial up-ki, VPN-ki oo kale, flight mode-ka aan dhahay, mobile hotspot-ka oo kale halkan ayaa laga bedelaa. So marka settingska waa door muhiim ah ayuu kombiyuutarka ka qaataa. Waa kana presentation-ka oo kale, background-ki haddii aad rabto inaad wax ka bedesho oo kale haddaan click ku siino oo kale. Muuqaaladii oo kale haddaan rabno inaan wax ka bedelno oo kale. Color-ki haddaan wax ka bedelno. Lock screen-ki marka aan sameynayno oo kale. Themes-ki, font-ki, start-ki, taskbar-ki waxayoo dhan inta ayaa ka bedeli kartaa. So marka settingska waxaan dhihi karnaa waa qaybta ugu muhiimsan ee kombiyuutarka. Apps-ka oo kale waa kana. Click ayaa ku siinaysaa apps-ka oo kale. Markaad rabto kombiyuutarka inaad wax ku darto ama wax ka saarto xagee wax laga bedelaa? Halkii ayaa laga bedelaa. Tusaale ahaan oo kale haddaan rabo oo kale inaan apps-ka aan wax ka bedelo oo kale halkeen tegaya? Halkan waa kana. Inta ayaan click ku siinaa fiiri. Waa kana haddaan rabo oo kale saacad oo kale, camera-da oo kale haddaan rabto inaan uninstall ku sameysto oo kale meesha laga bixiyo waa kana. App hadduu kombiyuutarka aad rabto inaad iska bixiso oo kale inta ayaa laga bedelaa ama laga bixiyaa. So marka waxaan dhihi karnaa settingska waa qaybta ugu muhiimsan. Accounts-ki waa kana. Time and language-ka haddii aad rabto inaad wax ka bedesho oo kale. Gaming-ka oo kale qofka game ciyaarayo oo kale meelaha Xbox-ki oo kale qofkii rabo inuu kombiyuutarkiisa ku xirto oo kale meesha laga bedelo meeshaas waaye. Easy access-ki waa kana asagana search bar-ki, previous location-ki, camera-dii iyo microphone-ki haddii aad rabto inaad wax ka bedesho oo kale. So marka update and security-gi so marka waxyaabo badan ayaa meeshaan ayaad ka heli kartaa. So marka settingska waxaan dhihi karnaa qaybta ugu muhiimsan ee kombiyuutarka ayaan dhihi karnaa. Markii software ahaan markii loo fiiriyo. Marka waxaan maanta baranay casharkay ahaa settingska. So marka waxaan aad u baranay oo aan fahanay oo aan ka baranay si guud waxaan u fahanay settingska wuxuu yahay iyo qaabka uu u shaqeeyo ayaan baranay.